taliyihii nabad sugidda iyo xasilinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka jooga gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya Cabdirashiid Janan ayaa si toos ah ugu biiray maamulka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo aan sharciyada ka haysan dowladda federaaliga ee Soomaaliya. Wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado ayaa sheegaya in Cabdirashiid Janan oo xerada UK ee magaalada Beled Xaawo kula hadlay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka jooga magaaladaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah askartii dhawaan ka timid dhanka maamulka Jubbaland ee ku soo biiray ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee fadhigooda uu ahaa xerada UK. waxaana Cabdirashiid Janan sheegay inuu u sheegay ciidamadaasi in hadda wixii ka dambeeyay meel la wada dhigay khilaafaadkii dhex yeelay dowladda iyo maamulka Jubbaland, sidoo kalena ciidamadu ay aadi karaan meel kasta oo ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan Dolow ciidamadu kuwa ku sugan Beled Xaawo inay aadi karaan, kuwa kale ee Dolow ku sugan iyana ay soo aadi karaan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado. waxaa la tilmaamay sidoo kale in Cabdirashiid Janan uu lacag u qaybiyay askarta ku sugan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado, waxaana Cabdirashiid Janan lagu waramayaa inuu eedeyn toos ah u jeediyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. si gaar ah waxa uu eedeeyay sidoo xogtu sheegayso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, asagoo sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu doonayo inuu isku caanshubo magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe. Cabdirashiid Janan ayaa tilmaamay in aysan macquul ahayn inuu dhaxgalo khilaafka ka dhaxeeya Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. dad Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gadana ay u dhintaan khilaafka u dhaxeeya labadaas dhinac. Cabdirashiid Janan ayaa tilmaamay inuu safri doono magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya, halkaas uu wada hadal ku dhex mari doono Cabdirashiid Janan iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. ilaa imikadan ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku saabsan isku dhiibitaanka maamulka Jubbaland ee Cabdirashiid Janan. ha yeeshee maalmihii la soo dhaafay ayay soo baxayeen wararka sheegayay in Cabdirashiid Janan uu wada hadal la furay maamulka Jubbaland, asagoo doonaya in uu waxyaabo asaga u gaar ah oo maamulka Jubbaland uu kaga baahan yahay oo ka xalisto, sidoo kalena ciidamada ku sugan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado uu ku wareejiyo maamulka Axmed Madoobe. hase yeeshee hadda arrintaas ay dhacday, Cabdirashiid Janan wuxuu si toos ah ugu biiray maamulka Jubbaland, ciidamadiina waxay dib ula wareegayaan amaba dib ugu noqonayaan kuwii ka yimaaday maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe maamulkiisa, halka ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ka joogay gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Beled Xaawo ay si toos ah u noqonayaan ciidamo hoostagaya maamulka Jubbaland. waxaa la tilmaamayaa in wada hadallada labada dhinac ay ka shaqeeyeen saraakiil ka kala socotay Ethiopia iyo Kenya, kuwaasi oo shalato la xiray UK kula kulmay Cabdirashiid Janan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigoodu yahay xeradaasi, ayagoo si gaar ah ula hadlay Cabdirashiid Janan. wada hadalkaasi ayaana labada dhinac ay aad u gorfeeyeen, waxaana la xaqiijiyay in ugu dambeyntii meel la isla wada dhigo in Cabdirashiid Janan uu aado dhanka maamulka Jubbaland. dhanka maamulka Jubbaland waxaa la tilmaamay in wada hadalka uu qaabilsanaa taliyaha nabad sugidda maamulka Jubbaland ninka lagu magacaabo Basaam. wada hadalkaasi ayaana la sheegay in dhinacyadu ugu dambeyntii ay isku fahmeen wax kastana meel la iska dhigay.